waddanka Denmark ayaa ciidamo aan hubaysnayn u diri doona dalkaasi Ukraine kuwaasi oo uu sheegay in ay tababar dhanka ciidamada cirka ay ku soo qaadan doonaan xeryo ku yaala waddanka Ukraine. Tababarkan ay ciidamadan Denmark ka socda ku soo qaadan doonaan Ukraine ayaa noqon doona mid ku saabsan diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha wadin. Taliyaha ciidamada xoogga dalka waddanka Denmark, Major General Peter Bjørnsen, ayaa ka dhawaajiyay in ciidamadani ay tababar halkaasi ku soo qaadan doonaan muddo 2 toddobaad ah. Waxa uuna sheegay in aysan furimaha hore tababarka ku qaadan doonin ee ay ku qaadan doonaan magaalada Lviv ee galbeedka waddanka Ukraine. Horaantii bishii February ee sanadkan ayay ra'iisul wasaarada dalka Denmark, Mette Frederiksen, waxa ay kulan kula yeelatay magaalada Lviv madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky, waxaana kulanka looga hadlay tababarkan ku saabsan ciidamada ka socda dalka Denmark ee dhanka cirka ah. safiirka waddanka Ruushka u fadhiyo magaalada Copenhagen ee caasimadda waddanka Denmark, Vladimir Barbin, ayaa ka dhawaajiyay in arrintani ay halis tahay. Waxa uuna sheegay Vladimir Barberi in dhammaan xarumaha lagu tababaro ciidamada ee ku yaala waddankaasi Ukraine ay yihiin yoolka ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya dalkaasi. Waxa uuna sheegay in ay arrintani cawaaqib xumo ka imaan karto haddii ay Denmark ku dhiirato. Midowga Yurub ayaa si rasmi ah u ansixiyay dawada cusub ee loogu talagalay cudurka Alzheimer's oo magaceeda la yiraahdo lecanemab. dawadan cusub ayaa ka hortagi doonta caawinaad badan la ka geysan doonto marxaladaha hore ee cudurkani. Waxa ayna khubaradu sheegeen in dawadani faa'iido badan ay u leedahay dadka la daalaa-dhacaya cudurkan isaga ah. wakaaladda daawooyinka qaaradda Yurub ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano EMA ayaa horaantii bishii November ee sanadkii tagay ku talisay in la ansixiyo dawadan lecanemab oo magaca farmasiga aad oga gada doonto ay noqon doonto Leqembi ayaa horey waxaa looga ansixiyay wadamada Mareykanka iyo dalka UK ee boqortooyada Ingiriiska.